maanta waxaanu magaalada ceegaag ku booqanay oday cumar oo kamid ah odayaasha deegaanka ceegaag. oday cumar jilib haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada ceegaag waana odayaasha deegaanka ee khaatumo. cumar kusoo dhawo warbaahinta deegaanka. mastar ciro waa dhowahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sida wariyuhu inii sheegayba waxa weeye waxaan ahay odayaasha dhaqanka ee degmada ceegaag. marka hore waxaan ku baaqayaa oo aan ka hadlayaa mowqifka degmada ceegaag iyo shacbi weynaha ceegaag iyo nawaaxigiisa. maanta ceegaag haddii in badan lagu xama jiray inay somaliland tahay maaha, waa khaatumo, waa degmo ka tirsan maamulka khaatumo. haddana waxa weeye fadhiisimada ciidamada ayaa la keenaya haddii alla idmo. waxaan u sheegayaa maamulka somaliland maanta maamulka khaatumo way ka dhan tahay, dulqaadkii aad buu uga soo dhammaaday. shirar baa socda, ciidamadu waa heegan. waxaan dadku waa dad soomaaliyeed, waxaan ka baaqayaa dhig sokeeyo oo daata. maamulka somaliland ee goonistaagga sheeganaya waxaan ugu baaqayaa inuu ka tanaasulo dadka khaatumo dhulkiisa ee la caburinayo, ee la cadaadinayo, ee la laynayo, inuu ka tanaasulo aan ku baaqayaa. waxaan shacbi weynaha reer khaatumo ugu baaqayaa maanta waa maalintii ballanku ahaa in nabad la diido oo nabad diiday somaliland diiday inay dhulka khaatumo kaga guurto. maanta kaasaynu dalkeenna inoo hadhay. maantana waxa weeye qof kasta oo reer khaatumo ah waa inuu heegan u noqdaa si uu dadkiisa iyo dalkiisa u daaficin.